kuna soo dhawaada wararkii toddobaadkan halkan si wada jir inaga soo jeedino anoo Maxamed Jaamac Dhaanteeya iyo Cabdiraxmaan Rashiid Dalmar. Qodobada wararkan idin haynana waxaa kamid ah Somaliland iyo Khartoum oo heshiis ku gaadhay magaalada Addis Ababa. madaxweynaha dalka Burundi ayaa Ingiriisiisa oo sheegay inuu dacwad ku gudbinayo midowga Yurub. madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo socdaal qaatay 48 saac ku gaadhay caasimadda dalka Masar ee Qaahira. hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in ilaa 8,309 qaxoonti ay ka keentay Kenya. qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan haatan iyagoo fidsan. Somaliland iyo Khartoum oo heshiis ku gaadhay magaalada Addis Ababa. wadahadalladii magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia uga socday xukuumadda Somaliland iyo maamulka Khartoum ayaa lagu gaadhay heshiis ka kooban 11 qodob. heshiiskaas oo ay labada dhinac u kala saxeexeen wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Saad Cali Shire iyo gudoomiyaha baarlamaanka Khartoum Maxamuud Sheekh Cumar. dhinacyadan ayaa markii ay ku soo guriyeen noqdeen magaalooyinka Hargeysa iyo Buuhoodle ayaa midba sida uu doono u fasiray heshiiskaas. hogaamiyaha maamulka Khartoum Professor Ali Khaliif Galeed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maamulka Khartoum aanu marnaba ku milmi doonin Somaliland heshiiskana ku tilmaamay tallaabo labada dhinacba dani ugu jirto. madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa sheegay in dacwad uu ka gudbinayo mushahar la'aanta ciidankiisa jooga Soomaaliya oo gaaraya 5,000 oo askari kuwaas oo aan wax mushahara qaadan muddo 11 bilood ah. ciidamada Burundi ayaa 11 bilood aan qaadan mushahar kaasoo ay dhammaantiisba bixiso midowga Yurub waxaase mugdi ku jira xiriirka Burundi iyo midowga Yurub kaasoo go'ay bilowgii sanadkan kadib markii uu madaxweynaha Ingiriisiisa uu sheegay inuu mar saddexaad u soo sharaxayo talada waddankaasi Burundi. dowladda Mareykanka oo sheegtay in la ciqaabi doono Soomaalida haysata dhalashada Mareykanka ee ku lug yeesha musuqmaasuqa doorashada Soomaaliya. war ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanku sharciga la tigsan doonto muwaadiniinteeda dhalashada Mareykanka haysata ee ku lug yeesha howlaha musuqmaasuq iyo wax isdabamarinta ee laga wado doorashooyinka Soomaaliya. tallaabadan goodiga iyo digniinta isugu jirta ee Mareykanka ka soo saaray xilligan ayaa muujinaysa musuqmaasuqa baahsan iyo wax isdabamarinta aan loo dulqaadan karin ee hareeyay doorashooyinka Soomaaliya. sidoo kale xubnaha beesha caalamka ee Soomaaliya taageera ayaa ka hor yimi go'aankii madaxda madasha wadatashiga qaranku ku kordhiyeen xubnaha aqalka sare ee ahaa 54 sida dastuurka kumeel gaadhka ay dhigayo kana dhigeen 72. beesha caalamka ayaa tallaabadan kordhinta ku tilmaamtay mid dhaawacaysa dastuurka dalka. hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in ilaa 8,309 qaxoonti Soomaali ay ka soo celisay dalkaasi Kenya gaar ahaan xeryaha qaxoontiga Dadaab ee gobolkaasi Waqooyi Bari tan iyo sanadkii 2014. UNHCR ayaa Khamiistii toddobaadkan xustay in bishan December ay ku dhawaad 2,000 oo qaxoonti Soomaali ah ku soo celisay magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyadoo adeegsanaysa duulimaadyo diyaaradeed. madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo socdaal qaatay 48 saac ku gaadhay caasimadda dalka Masar ee Qaahira. madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa socdaal shaqo oo qaatay 48 saac ku tagay dalka Masar. madaxweyne Geelle ayaa markii uu gaadhay caasimadda Masar ee Qaahira halka waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Masar General Abdulfataax al-Sisi waxaanu isla goobta soo dhaweynta ku qaatay sanaan sharaf uu ka qaatay ciidanka qalabka sida ee dalka Masar. kulan saacado badan qaatay kadib ayaa warbaahinta loo sheegay in si aad diiradda loo saaray arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha sidii labada dal iskaga kaashan lahaayeen. Djibouti oo ah dal yar oo dhaca marin biyoodka istiraatijiga ee badda cas ayaa waxaa saldhigyo military ku leh dalal badan oo dunida. wararka naga soo gaaraya toddobaadkan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan inuu dab khasaare geystay ka kacay xarun ganacsi oo ku taala isgoyska Albaraka ee degmada Hodan. dabkan ayaa yimid kadib markii la gubay goob qashinka lagu kaydiyo oo ku ag dhaweyd goobta ganacsi ee gubatay. mid ka mid ah dadka deegaankaasi oo idaacadda Risaalo oo aan warkan ka soo xiganay u sheegaya inuu dabkani geystay khasaare hantiyeed waxaana gubtay goobtaasi ganacsi ee uu dabku ku qabsaday.
وهاجاك dhageystayaal halka nagala socotaan waa dhexnimo.media.com inta waxay noogi wararkii toddobaadkan idila socodsiinaynay anigoo Cabdiraxmaan Rashiid Dalmar iyo waliba Maxamed Jaamac Dhaante iyo dhanka farsamadana waxay noo joogay baxsan xirsi yaasiin mustar qaran intayna toddobaadkan kiisa kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa dhamaantiin dhamaantayo sidaa iyo nabadgelyo